cidlada ma ku daawanaa murugta ma ka bedelaynaa walla naari ka inkaari ma ka maarmiye mama. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال ميل والبعدهم كجوكتان كسود هذا جنالك وجنالكينا دتك عصب أولا لنا وحن كعصنينا إني نوصلنا سبسكرايب انتينا كلتنا أو نلجوكت جنالك ولا ليال إذا كان وحي فكرة كقبتان برامجك كالصعودات جنالك إيو وحيالها دعاية إن إذا كان كومنت نقصيسان نولا يقريسان مرول بو إن حسوسينينا ولا أدي وجعل باتهين ضد نقرب تاغاناتين انت عصبنا سيوك الله كرجيننا إن شاء الله تعالى. runtii barnaamijkan waa barnaamijka dhacdooyinka waxyaalahan ku soo deynayna mar walba waxaan jecelnahay wax oo idin farxad geliyo oo runtii aad la dhacdaan inuu noqdo. maanta qisadeena waxay ku saabsan tahay qisa oo baryahan oo dhan haysatay miidiyaha khaasatan wadanka waxay ka dhacday la dhahayo Thailand. waxaa dhacday nin Thailandi ah oo comedy sameeyo oo fanaan ah oo caan ah ayaa wuxuu sameeyay wax aanan nin rag oo adduunka jooga marna ku fakirin. aniga oo muslim ah alxamdulillah ilaahay wuxuu noo baneeyay inaan afar aroosno haddana cabsidii oo iska badatay iyo mas'uuliyadda oo badatay darteeda xataa ninkii maanta wuxuu kaafin asiyaa runtii marka laga hadlaayo halkii gabar oo guriga joogtay iyo caruurtii oo mustaqbal iyo iskool iyo jaamacadii iyo mas'uuliyad u baahan. saas ogeeda ninkan wuxuu jebiyay iskoorkii caalamka u yaalay oo numberka ugu badan oo guri la geeyo oo mas'uuliyad laga qaado oo hable ah aroos runtii way adag tahay in maantay nin inuu iskugu geeyo in koox dhan oo dumar ah guri mas'uulna ka noqdo waa shay aad iyo aad u adag. marka ninkan runtii waxaan leeyahay aniga ahaan shakhsiyan iyo rag badan oo dunida jooga runtii waa iskoorkaas waa haysataa waana wax aanan nin rag niyadiisa galin ama aanan ku fikirin ayaad la timid laakiin waxay rabtaba ha noqotee ninkan bal muxuu uu sameeyey oo fikir ah. wuxuu sameeyey ninkan awal shay gabar baa xiriir kala dhexaysay koley jecel iyo sheeko ayaa jirtay gabadhii way is arooseen markaas arooseen wuxuu bilaabay marka in noloshii oo dhex galay oo nolosha fikir ka qaatay kolay asaga waa sidii la tahay way u sahlanaatay kolay inuu sameeyo barnaamijka inuu badiyo numberka guurka inuu badsado. gabadhii loo tashaday wuxuu ku dhahay in aroos araba in ay waafaqdaan oo waxay ku dhahday ku soo dhawow kugu taageersanahay in aroostid. runtii markaas ka bacdi wuxuu bilaabay inuu hablihii baadgob u galo. gabar ayuu kale wuxuu bartay asagana wuxuu ku bartay gabar kaleeto suuqa gabar aad u qurux badan ahayd aad iyo aad u jeclaaday meesha isku barteen runtii uu u soo bandhigay wayna waafaqday inay is aroosaan iyadoo og inuu gabar qabo. runtii waa qisadaana mar labaad waxay ninkii ay u sii noqotay faal celis inuu ka sii wada meeshii guurkii oo sii uu arkay waxaan inay mas'uuliyaddeeda sida loo malaynayo inaysan ahayninbo oo uu ka bixi karo mas'uuliyaddan oona runtii mas'uuliyad aad iyo aad yacni agtiisa waxay ka noqotay yacni soo jiidatay oo la dhacay. wuxuu isku dayay marka inuu haddanana number kale kusii daro oo saddexeeyo. wuxuu bilaabay marka inuu raadiyo gabar kaleeto wax dhibaatana uusan kala kulmin kuwa hore. marka gabar kale ayuu wuxuu ku bartay maalmaha ka mid ah isbitaal wayna cajabisay gabadha aad u qurux badan tahay hablihii kaleeto oo asagana oo guriga u joogay ayay ka bisii qurux badan tahay. marka wuu u sheegay ayada uu ka dhaadhacsiiyey inuu arooso oo maasha allah yacni kamilo arooskaas ayadana saddex ku noqoto. ayadana way ku waafaqday wuuna soo dhaweeyey ayadana meeshaas hawsheeda ku dhamaatay. ninkii hadda sida uguma sii harine wuxuu sameeyey inuu sii raadiyo mid afaraad ayadana sidoo kaleetona wuxuu ku bartay social mediaha waa sii waday shaneeyey waa lixeeyey intaba social media ka bartay. marka ninkii albaabadii waa furmeen wax dhaqaalana uguma baxayaan noloshina waa u kala baxday. marka wuxuu aaminay inuu numberka sii wado ilaa uu ka gaarsiiyey numberka 7 iyo numberka 8. marka hadda waxa uu guriga u joogto oo hadda maanta familigiisa
يعني رسميا نقضي وسديد دمر ayaa guriga u joogto runtii ninka uu la dhacay barnaamijkii dumarka guurka dumarka wuxuuna leeyahay ba aslan ragga bilaash ayay guryaha u joogaan ee wada sameyn karaan inay dumarka ay badsadaan marka ninkan maxay kula tahay adiga walaal oo na fiirsanayo ninkan miyuu ka maskax badan yahay ragga kaleeto miyuu ka fakir bedelan yahay ragga kaleeto mise dumarkii ayaa dumarkan farqa u dhaxayaan marka waxyaalaha la isweydiinayo oo media bariyahan dhan ka socda waa arrintaas waxyaalaha waana la soo bandhigay sida u jeedaan videogan aad fiirsan doontaan marka waxyaalaha cajiibka waxa waaye adiga oo bidaadan oo caalamka ku nool oo u jeedad maanta mas'uuliyadda meesha marayso qofka ku dhiiraday 8 dumar inuu hal guri iskugu keeno oo haddana يعني عرور إيه مستقبل كسم إنه سماية ربه سيدو أركتا طلبات المهي مركا إمادان هالدواء بدنا مسؤولية ده مستقبل كا وحول برهنتي وآدي بدنا مركا وحيالها أو هرنتي إدت كليا بهم حكمت إيه أو سؤال لجوي دي هرنتو حقيقة سيدي آيات إنه شهين جورج الأحدثة ما دام أسديت دمر آتيهن قبله مركا لو يدي سؤال شو حكوا جوابين annaga runtii waxaan ku noolnahay qol walba oo guriga ka mid waxa degan 2 dumar marka sida ay sheegeen waa 4 qol guriga uu ka kooban yahay qol walbana 2 dumar ayaa jiifato oo meeshaas ayay xaajiga ay isku qaabilaan marka waxyaalaha cajiibka oo ayadana waxay noqotay ilmihii iyo mustaqbalkii marka laga weydiiyay su'aashaas caruurta dhankooda marka la dhahay dumarka ka warama si u aragtaan inaad caruur u dhashaan oo reer meeshaas oo reerka ku weynaado waxay dhahayn annaga waxaan diyaar u nahay xataa inaan inta nolosheena ka dhiman asaga aan la dhameysano asaga marka la weydiiyay su'aasha sidoo kale tan wuxuu ku jawaabay waxaan diyaar u ahay xataa inaan kuwa kale ku soo daro haddii xataa ay suurtoodo laakiin uma haay hadda gurigan guri ka weyn marka saas ogeeda ayuu halkaas asaga wuxuu taagan yahay numberkan enough wali iguma ahan oo hadda waa u sii baahanay number kaleeto marka su'aal asaga waxa la weydiiyay wax caruur miyaad leedahay wuxuu dhahay gabadha weyn oo familiga ugu horeysay ayaa hal leh labana hadda uure leeyihiin kuwa kaleetana waxaan rajeynaa in ayagana sidoo kaleeto awlaad insha Allah inaan ka helo marka adiga walaal oo na daawanayo مسؤولية أنت أيا أركتها إنه نكاس يعني مكو قصار دونا جور كاس مكو فشل من دونا مسه وكل يعني وسي ود دونا إنه سيهر مريو جور كيسا مد اللبات سو أركتها ما أنت يعني وعي أدونك كجيرو ينولش ماشي مريسو التكنولوجيا ماشي مريسو إيوه مسيرك إيوه دبعتها فاميلة ده هذا بوخة كجيرو أو وقت وبفرتانك إيوه waxyaalihii runtii dhacdooyinka Soomaalida siiba halkii qofkii maanta hal gabar qaba runtii dareemi kara guurka iyo mas'uuliyadda iyo caruur iyo mustaqbal maanta ma kula tahay nin yani in number hatta 4 dumar isku keen kara guri taas waxa ka sii cajiib badneed oo runtii su'aalaha dadka soo jiita kamid ahayd waxa la yiri si u biisha faamiladan لو سديت قف واي بيلكون انت كان كرتان noloshan si u kaafisay wuxuu yani jawaab aan marna la filaynin oo ku jawaabay wixii ahayd ayaga ayaaba shaqaysto aniga bil ma bixiyo oo ayaga ayaa waxooda dhameystirtay aniga kaliya waxaan ahay ninkan ay jeedaan waxaan ahay ninka mas'uulka ka bas laakiin dhaqaalo iyo family ahaanba ayaga ayaa igu filan marka insha Allah taala waxaan rajeynayaa walaalayaal meel walba adduunka ka joogtaan inaad falcelis ka sameysaan oo aad insha Allah taala noo soo sheegtaan waxa aad ka qabtaan fikir ahaan marka waxaan leeyahay ku soo dhawaada mar labaad channelka noo subscribe noo saaro wixii aad ka qabtaan fikir dhacdooyinka barnaamijka dhacdooyinka inaad noo soo gudbisaan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh